السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. warqad oo maanta lasoo saaray oo codsi kasoo baxday xafiiska gariiqaanka guud ee dowladda aan maaragtay aqrinayay maanta bisha 26 April 2022. xafiiskaas wuxuu maaragtay garsoor u yahay guddiga fiid iyo xalinta khilaafaadka guddiyada doorashooyinka oo maaragtay waxa uu yahay avocado. marka codsi uu gudbiyey wuxuu codsi u gudbiyey ama codsi u qortay maxkamadda sare. waxay ka codsanaysaa maaragtay maxkamadda inay ka laabato qabashada dacwada uu gudbiyey Fahad Yaasiin. marka waxay codsadeen in dacwadiisa lasoo marsiiyo guddiga xalinta khilaafaadka, yani habraaca doorashooyinka saasuu sheegaa. yani ciddii cabasho qabto in cabashadeeda ay marsiiso guddiga xalinta khilaafaadka, habraaca saasuu sheegaa. marka laakiin yani Fahad Yaasiin wuxuu ogyahay in maaragtay dad badan inay jiraan oo dacwooyinkooda aan la eegin, inay jiraan. guddiga xalinta khilaafaadka waxay gacanta ku hayaan ilaa ay 30 dacwo oo la xiriirta kuraas doorashooyinkooda aan loo marin habraaca. kuraas banaadiriga ka mid ah 5 kursi ee banaadiriga, hal kursi habraac loo raaci ma jirto. kulli hal kursi oo doorasho loo qabtay oo habraac loo raacay ma jirto, oo dad lagu tartansiiyey. xataa kuraasta qabaa'ishooda aan laga qaadanin oo ayka kuraastooda loo daaya, xataa waxay lahaayeen dad murashaxiinay lahaayeen oo waqti dheer isdiyaarinayay in yani doorashada beeshooda kursigiisa inay ka qayb galaan. ayagoo xaafadooda jooga le mar lagu dhawaaqay kuraasta waa la kala qaatay. 2 ka mid ah 5 kursi oo beelaha banaadiriga, 2 ka mid ahne beelo kalaa loo weeciyey. beesha qalmashuhu kursigeeda gorgortana lagu qaatay. dadka qaarkiis yani waxay leeyihiin adiga nin aqoon-yahana tahay, xildhibaanada qof aqoon-yahana waay, dad maaragtay ba iyo taa aan ahayn sidee maaragtay kursigeeda kaga xoogi karaan, kursigeeda kaga qaadi karaan. meeshaan awood dowladeeda la isticmaal runtaa fiican. dowladda waa naga awood badan tahay. kursigeena reerna qalmashuhu kursigood gorgortana lagu qaatay. gabadhii guddiga doorashooyinka ku jirtaa laftigeedaaba ka hadashay. gabadhii guddiga doorashooyinka waxa u ahayd guddoomiyaha laftigeedaaba ka hadashay. waxay tiri kursigaaga qaadaa la yiri, kursiga adiga aragtid qaado, inta kale noo daa. gorgortana lagu qaato kursigaas. awood dowladeedana la isticmaalay. hay-adaha dowladda mid ka mid ah xafiiskeeda laga soo daberi waxaas oo dhan. marka anaga dowlad maa iska celi karnaa? dad ba itaa ayn run waxba naga qaadi karaan. marka taas saasaa loo fahmo. marka calaa kulli xaal guddiyada fiid iyo siid guddiga xalinta khilaafaadka, yani dad badan waxay aaminsan yihiin in faragelin ay ku socotay. yani dacwo in loo gudbiyo iska daabe, guddiga xalinta khilaafaadka in dacwo loo gudbiyo iskaba daabe haddii maaragta meesha faragelin ay jirto. maamulada laftigood, maamulayaasha maamul goboleedyada iyo madaxdooda qaar aba laftigooda saas aaminsanay.
in maaragtay meesha faragelin ay jirto. yacni waxaa la arkay in ciddii la rabo oo guddiyaasha ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga fit ciddii la rabo in maaragtay xilka laga qaadayo oo xilka laga tuurayo ayadoo aan lala tashanin madaxda wada tashiga qaran, sababtoo wax kastoo heshiisa ku yimideen qayb waxaa ka ahaa maamuladaha, qayb ka ahaa madaxda wada tashiga qaranka, qayb ka ahaa. wax lagala tashta ma jirto. ciddaad aragteen dhan oo maaragtay xilalka laga qaadaya la tuurayay kan ka bixi kan soo geli, cid lagala tashta ma jirin. labada xogeeye aqalada sare aqalka sare aqalka sare iyo aqalka hoose, labada xogeeyeba yacni markii lagu wareejiyey galalka kuraastii soo baxday galalkooda markii lagu wareejiyey maxay ahayd? waxay ahayd in shahaadooyinka la siiyey keliya cidda aan wax dacwad aan ka oolin, keliya oo yacni kursigeedu ku soo baxay sida habraacu waafaqsan yahay keliya in maaragtay shahaadada la siiyo. saasay ahayd. markaas inta kaleentana la hakiyo. laakiin shahaadooyinka runtii si oo cashwaa'i ah aa loo bixiyey, wax la kala sooci ma jirin. yacni indiscriminately aa loo bixiyey shahaadooyinka, wax maaragtay kala soocisaa ma jirin. mafahanti? dacwooyin badan ilaa iyo 30 oo gaaray guddiga xalinta khilaafaadka soo gaaray oo markii si gaara indhaha yacni si gaara loo fiiriyey, loo eegay 30 kursi. weli hadda maaragtay inta doorashooyinka aysan yacni ay gabagabo ku socdeen ahayd, haddana weli qaar badanaa maaragtay doorashooyinkooda weli la qaban, sida hirshabelle oo kaleenta waxaa ku maqan, maxaa la yihahdaa jubbaland waxaa ku maqan, meel kale ii sheeg haddii ay jirto. kuwaas oo dhan yacni kuwii oo doorashooyinkooda lasoo dhameeyi waayo keligiis 30 oo kursi waxaa la hayaa oo doorashooyinkooda wax oo habraac loo mar aysan jirin. xalinta khilaafaadkay soo gaartay. laakiin waa aragtay shahaadooyinka ayadooba wax loo kala fiirsanin si ashwaaci ah indiscriminately aa loo bixinaya shahaadooyinka loo siinaya. haddana kulligood waa la keenay, waa la dhaariyey ayagoo dacwooyinka ay yaalin aa la dhaariyey. mafahanti? marka dadka maxay sugayaan? maxkamad sare aadeen, choice kale ma qabaan. marka waxa way kursigan yacni dacwadan oo yacni mudanahan uu gudbiyey haddii la soo celiyo macnaha waxa way dacwad kasto yani qof kasta oo dacwad u gudbiyey maxkamadda sare oo la xiriira doorashooyinka waxay noqonaysaa ayadana in la laalay noqonaysaa. marka arrintaasaa jirto. arrimahaasaan rabay inaan maaragtay aan idinkala hadlo, waxaan oo yaab ka leh aan arkay. ma fahanteen? marka soomaaliya ilaah u gargaaro, soomaaliya ilaah u gargaaro. saan camal ciqaabo lagu mutaysanaa. qur-aanka uu tilmaamay, qur-aanka uu sheegaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. yacni dulmi ay sameeyeen dad gaar ah, dulmi ay sameeyeen, gaf ay sameeyeen dad gaar ah ayaa waxaa laga yaabaa inay asiibto ummaddaas oo dhan. soomaaliya ilaah u gargaaro, soomaaliya ilaah u gargaaro. meel khatar ay arrinta ku socotaa. wallahu almustacaan. assalaamu calaykum waraxmat ullah.